maalmihii la soo dhaafay hadalhayn xoogan ayaa ka dhalatay wararka ku saabsan inuu jiro wada hadal u dhaxeeyo dawladaha Soomaaliya iyo Kenya kaas oo ku saabsan in kiiska dacwadda badda oo Kenya muranka gelisay lagu xalinayo meel ka baxsan maxkamadda cadaaladda dunida ee ICJ oo haatan laga sugayo go'aanka madambeys ah. wararkan waxa ay soo bixin wixii ka dambeeyay markii dhawaantan dawladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in dib loo soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeyay dalka Kenya kaas oo horey loo jaray dabayaaqadii sanadka aynu ka soo gudubnay ee 2020. dawladdu waxay cadeysay in dib u soo celinta xiriirka Kenya ay ka shaqeysay dawladda Qatar oo la sheegay in sanadihii ugu dambeeyay ay saameyn xoogan ku lahayd siyaasadda dalka. Qatar ayaa la aaminsan yahay in dawladda Kenya uu kala dhaxeeyo heshiis ku saabsan sidaal baaris ay ka wado suuxdinta badda Soomaaliya oo ay dawladda Kenya goor sii horeysay muranka gelisay. soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxaa daba socday warar kale oo tibaaxaya in iyadana ay suuragal tahay in dacwadda badda laga soo celiyo maxkamadda ICJ laguna xaliyo meel ka baxsan maxkamadda taas oo ah arrin ay dawladda Kenya muddo ku taameysay. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa bishii Abriil sheegay in ay jiraan wadamo ku cadaadinaya in ay ka laabtaan dacwadda muranka badda oo waqti xaadirkan hortaala maxkamadda cadaaladda dunida ee ICJ. badii aniga 4 sano aan joogay runtii waxa iga soo gaaray culays aad u fara badan oo dhinacyo badan iga iimaanay waa xaqiiq bacdama aan muddo dheer saxada ka maqnayn Kenya waxay leedahay saaxiibo aad u badan oo adduunka oo dhan ah marka dawlad walba nala soo hadlay oo laha Kenya u daaya oo pressure meel walba nooga iimaanay oo aan kala har lahayn hadda oo waqtiga dhamaaday oo aan sugayno maxkamadda inay soo goyso go'aan yaan loo iimaanay wax leeyahay ma ka soo celin kartaan ما كسو علي كرتان دعودي يا دولة قار كلية كسو علي بالعقل حماس فيه وهذا أو أنتي عن صوت كيسني أفر سنة عن صوت كيسني إيه أنتي خرجنا ربحي إيه كي واحد سميسي أو كراستي بنيسي أو كيس كي لقى لقوا مدعي أو لو يهذني لما يستين هاوشي وأنسوي إن بلها صوص على القرآن إن نهلنا يا والله صوت حلولي هاي بدعي كرتها إن si culayska la idinka dajiyo ma ka soo celin kartaan war kama soo celin karno mana ka soo celinayno wax shakhsi u gaari kara maaha waxaan ummadda Soomaaliyeed baa iska leh jiil hadda aan dhalan yaa iska leh macnaheedu waxa weeye waxaana lagu soo waday culays aanan caadi ahayn handadaad aan caadi ahayn maxaa la yiraahdaa haddii xitaa lagu laaluushi karo la isku dayaa in lagu laaluusho haddii xitaa maxaan ku raahdaa lagu oran karo waa lagala shaqeyn doonaa electionka soo socda wax kasta lagu day musharaxiinta mucaaradka xildhibaano iyo siyaasiyiin ka aragti duwan dawladda haatan jirta iyo dad kale oo aan tiro yareen ayaa maalmihii ugu dambeeyay isla dhaxmarayay wararka sheegaya in dawladda Qatar ay ka shaqeynayso sidii dacwadda badda looga soo celin lahaa maxkamadda ICJ iyadoona wararku intaasi ku dareeyeen in uu jiro kulan